حفلة runtii de xaflad lagu sheegayo wasiirka hore gaashaandhiga runtii de gumaadka ka geystay ee wadankeena ka geystay oo xaflad xamar looga dhigayo oo waliba madaxweynaha Soomaaliya uu leeyahay waxba ma geysan wax dhibana ma geysan aad iyo aadna uu dabada uga riixayo aanaad moodayso in inaga leenagu bahdilayo leenagu garaacayo anigoo runtii ka hadlaya xaruntii laga xoreeyay wadanka Soomaaliland laga xoreeyay xaruntii halganka oo ka hadlaya oo nasiib u yeeshay inaan barasaab ka noqdo waxaan leeyahay xasuuqa loo geystay dadkeena waxay ku haboon tahay in maxkamad Soomaaliland ay samayso maxkamadaas oo lagu qaadayo dadka xasuuqa ka geystay oo garyaqaanada Soomaaliland xeerlaaliyaha guud ee qaranka maxkamadaha garsoorka Soomaaliland iyagoo hay'adaha kale caalamiga la tashanaya waxaan anigu soo jeedin lahaa annagoo runtii gobolkayga iyo dadkayga ummadayduba oo xarunta runtii hooyadood ah ayaa halgankii hooyadooda waxaan leeyahay xasan sheekh iyo ragga kale gacanta siinaya taageersan wixii dambe ay ku yeeshaan in lagu qaado oo maxkamad Soomaaliland ay samayso lagu qaado ma aha inaynu xabaaran maalin walba soo saarno maalin walba inaynu xabaal baan noqonaynaa dadkii lagu haasay ma aha waa in si toos ah aynu uga hawlgalnaa oo la maxkamadeeyaa dadkii ka dambeeyay xasuuqa kuwii dabada ka riixayay kuwii falka fuliyay yani marka in maxkamad la soo taago oo Soomaaliland ay maxkamadayso baan aad iyo aad u soo jeedin lahaa